السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan joognaa waa Iliad Wave Adjust. waxaan hore u wadaynaa insha Allah xiisadeeni ahayd oo xilligan camal ah qaadana week kasta weekly analyze anagoo suuqa soo qaban doono lacagaha group oo week hore oo kaleeto lacagta dollarka jihadeeda ayaan forecasting ku sameynay. caawana insha Allah group kale ayaan geli doonaa yeenka caawa isla fiiri doonaa insha Allah anagoo dib u eegi doona waxyaabihii ka dhacay lacagta dollarka adduunka hadda soo dhaafay oo overview ku sameyn doona. inta waxaan gelin ardaydu badan markay soo galayaan waxay xoogaa ku wareeraan sida xiisada live-ka website-ka lagu soo galo. markaa joogtid website-ka home-kiisa inta oo kala joogtaa home-ka markaa taagan tahay waxaad arkaysaa qaybtan menu-ga surfaces kuwan oo waxyaabo kale qaybtan resources-ka markaa imaadid meeshan ugu hooseysa ku qoran tahay weekly forecast oo kusoo dhufanaysaa weekly forecast and commodities analyze. markaa kusoo dhufatid waxaad ka arki doontaa schedule-ka waxa ku jira ama videogaas ama xiisadaas live-ka la qaadan rabo intay soo geli doontaa. haddii markaas xiisada live aysan jirin waxaad dib u fiirinaysaa kuwii hore loo duubo. markaas dacaawo kale markaa xiisadan inoo dhamaato meeshan way ka baxaysaa midaan oo kuma jiri doonto oo videoyo caadi ah soo galayaan sida kan oo kale. videogan markasta oo la soo gelay YouTube-ka inta kusoo tixmi doonaan adoo dib u heli kara weegada la soo dhaafay oo kaleeto dib u fiirinay kuwa hadda socdaan xiisada ku dhaafto oo kale oo daawo kartaa like this ayaad samaynaysaa. markaa soo galaysidna haddoo aragtid inuu schedule meeshan ku dhegan yahay saacadda iska fiirinaa 4 October 2020 2 saac bar habeenimo xiisada bilaabaysay. inta markii la taagan yahay laba option oo ku furan join via Zoom app iyo join via web browser. laakiin muhiimadda waxay tahay markasta in aad u baahan tahay in appka aad mobile isticmaalaysid appka kuugu jira waa inuu login ku ahaadaa. sidoo kaleeto haddii PC aad ka soo galaysidna sidoo kale waa inuu login appka Zoom-ka inuu login ku yahay asagana waa sidoo kale browser aad ka soo galaysid same like that. adoo login ahaan caqabada kugu noqonaysa Zoom-ka inaad soo join garaysid oo error wuxuu ku sheegi doonaa ama haddii ku wuxuu ku leeyahay email-kaaga iyo waxaas geli si ciladaas ku qabsanin markasta login ku ahaado app Zoom-kaaga kadib toos aad soo gali doontaa insha Allah. mararka qaar waxaa dhici doonta kan oo kaleeto join-kan inay ardada arkin. join-kan ardada arkin macnaha waxaa waaye kuwaas kuwa website-ka login-ka u ahayn waaye. marka linkiyada hadda kan caawa kaleeto ardada way ku wareereen luuqa iga soo direen maxaa la lahaa join soo qoraya dhaheen wax kale muusa ahayn linkigana wuxuu ahaa kii ardada website-ka loogu talagalay caawa meeshaan join-kaas marka ardada website ku jira muusa soo qoray xalada xaggaas ka imaaday. laakiin sida kaleeto normalka caadiga markasta insha Allah join-kaas meesha ku qoran tahay oo kusoo dhusan doontaa. haddaan website-ka login ka ahay haddaan log out dhaho join-tan meesha way ka baxaysaa. hadda login ka ahay marka intaas waa overview guud insha Allah. inta sidaa ugu gudbo sidoo kale waxaa jira ogeysiis yar oo ahaa in xiisadaha ardada u baahneed Iliad Wave-ka inay si fiican u bartaan ee professional ku noqdaan mustaqbal ka rabaan trading-ka oo dhan. koorsadii way bilaaban doontaa 5 October oo biri ku beegan insha Allah. wali fursad ardaygu u haysto isku diiwaan geliyo. ardada aniga kaliya ma bari doono Iliad Wave theory oo waxaan baraynaa waxyaabo badan oo kamid ah Iliad Wave-ka caadiga ah oo hore iyo midkan dambe sida la iskugu dabaqo strategy sidoo kale waxaan bari doonaa oo complete ah oo qofka ku trade doono oo rules-keeda iyo wixii dhan wadata. intaas markaa ugu gudbo view guud oo koorsada ku saabsan sidoo kale waxaa jira package kale oo qofku u baahan yahay uu heli karo oo ka mid yihiin premium-ka iyo pro-ga oo charts-ki suuqa time frame-yada kala duwan 1 hour-ki 4 hour-ki weekly-gi koos dadku isku mid ah waxay ka trade gareeyaan. qofka wuxuu ka trade gareeyaa 1 hour iyo waxa ka hooseeya qofka wuxuu ka trade gareeyaa 4 hour-ka iyo wixii ka sareeya wax noocaas ah. dadku marka way kala qaadan yihiin qofka option wuxuu haystaa marka charts-ki meesha u taxan yihiin mid kasta noocooda oo fursad ugu baaran kara. hadduu 1 hour ka trade gareenayo 1 hour-kaas waxaa heli doontaa waxyaabo kuu sheegaya astaamo kuu sheegaya 1 hour charts-ka ayagoo wada dhan dhammaantood midka aad fursad ka baaran kartid iyo midka aadan ka baaran karin.
suuqa farlaatasa oo iska socdaa soo maaha laakiin lacagaha ayagaa sii kale kuwo saxmaana jiro oo suuqa kaliya u baahan in fursad laga baarto iyo kuwo fursad aan laga baaran karin waxyaabahaas ardada oo la joogta si fiican u dareemaya oo jihada saxan suuqa jihada saxan kaliya inaad ka tiragelin markasta aan suuqa ka hor imaanin hadaa 1 hour tahay 1 hour inaad ka tiragelaysid hadaa 4 hour tahay 4 hour like this oo kaleeto sidoo kale waxaa jiro in lacagaha u baahan in iska ilaaliyo in la soo gelinayo impact barrieska regarding technical videoga waxyaabahaas qaybta broga uu leeyahay premiumka sidoo kaleeto wuxuu uga duwan yahay kan dhammaan wax walba oo broga leeyahay waa uu leeyahay laakiin live trading room uu uga duwan yahay live trading room maxaa waaye waa in si live ah tradingii loo wada qaato waa like skinner oo kaleeto targetka sadaabada isla diyaarinaa targetka meesha asalka dhigareed meesha gal lahayd waxaas inaa loo jeekina sidii trade lagu keeno la sharaxa sababta lagu keeno iska gal lagu dhahay kaliya signal ahaan lagu soo diro ma ahan lacagaha in la iska ilaaliyo u baahan waxyaabahaas dhan waa lagu kala sheegaa hadaa 1 hour ka trade gareynaysa 1 hour ka lacagahana diyaara hadaa 4 hour ka trade kuwana diyaara laakiinse lagu kala saari doonaa insha Allah qof kasta kaliya maaha kuma xirnaa doonto qofka inuu waajib ku tahay inuu ku trade gareynayo systemkeena because anaga waxa bixinayno premiumka program waxay tahay waa directionka suuqa mujada directionka suuqa hadaa heshid an istaraatiijiyad ah isticmaalaysid oo ku dabaqi karta qofka xor waay oo maqaslay qofka inuu kaliya systemka aanayna u trade gareeyo laakiin haduu u baahan yahay systemkaas gaar oo u bar karaa si loogu trade gareynayo ardaydaas uu bar karaa oo haduu ku qanco ayadoo qaadan kara laakiin haduu haysto system kaleeto directionka kaliya si fiican u heli doonaa perfect intaas hadaa ila fahanteen هذا هرب صعد مركا يوتيوب كنا واكل بودكاست أو بان يوتيوب كفيديو هذا بركي أو لضوء ولا زوج ليا أنتوا ما كره إذا بيفا جست كورا دبنا وعشرة شذا كلا 10 وحاس على أو تحناء إلى دويف كتير هاي أو مرمر لزوج ليا أسجع كم ويجي اللي أنلايز كان مركز توا وأسجع ويك استانس زوج ليا إن شاء الله أنت سووا فيديو جود أنت سووا جود جدا أنا هقول لنا أنا ودي بقول إيه دون وحيابي كم عاي لعبت $1 هذا قبل إن شاء الله بروفيت دولار وين جهريته سيدان كجرناي waxaan ku saadaalinay jihada suuqa 1 hour ka wixii ka hooseeya suuqaas in uu bullish yahay anagoo u soo qabanay 4 hour da waxay imaado نقول هناي ماشان سوقا سايكل وصول غاسترتي سايكل انت كل ماده سايكل كان ما مركو u baahan yahay inuu nasto correction u baahan yahay correction ki marka qaab kala duwan oo u dhici kara because correction waa badan yihiin wiiga hore inta waxaad arkaynay correction sidaan u muuqday waxaa dhahnay correction kan sidaan u yahay wuu ku soo daadan karaa suuqan waa step 3 hadaad xasuustaan step 3 ka bilaabnay saddex option oo fiirino habeenkaas kii koowaad sidaan oo ahaa suuqa inuu soo daato halka kii labaad uu ahaa inuu dhaqaaqa caadi impulse caadi u noqdo uu correction noqonayo kaas waa fiir garow kii labaad sidoo kaleeto kii saddexaad ma uu fiir garoway oo hadda suuqa ma uu soo daadanin midka u dambeeyay recommendation ku bixinaya muxuu ahaa waxa uu ahaa cycle kan correction kan inuu yahay midka suuqa macquulka ka tahay inuu sameeyo dad xasuusataan aan video ku laabto in ayar si ay intu siiyo videogi meelahan oo ahay san jeclahay qofka soo daawadana uu dareemi karaa kii joogana ka wasi fiican perfect I think waa kan videoga step ku dambeeyay kan oo ahay suuqa aan ka filaynay still kor loo sii buush gareeyay inta wax yar uu soo nasto wiiga dhaweed marka suuqa waa uu soo nastay masiinada ya still hadana wax marka tago masiinada ya still dhex maraysa suuqa ugu yaraan waxa looga baahan yahay inuu sameeyo sidaan oo kale soma inuu meelaha yimaado hadda u jeednaa intuu yimid laakiin uu soo nasto kadibna iyo haygan u jiro still marka taas maxay noocdeen macnaheeda inuu suuqi still time frame-da hoose uu bullish ka yahay perfect waxaan ka tusaale qaadanaynaa marka as long as September koodeeda kooxdana ay taagan yihiin suuqan kor loo sii wadi doonaa insha Allah suuqan kor loo sii wadi doonaa hadda intana waxaa ka sugaynaa suuqan
inuu nasiino noocan soo sameeyo kadib uu kursi aado hadduu nasiinadan sameey waayo laakiin impulse caadi oo meeshan ugu soo daato waxaan sugaynaa inuu new logan jibiyo new logan hadduu jibiyo suuqa still cycle-kan weyn from March ma uusan dhamaanin suuqaas hoos ayuu usii socon doonaa perfect clear direction aan bixinaynaa sida analysis-keena markasta ku sheegaba waa direction clear ma ahan setup ma ahan signal haddii adiga strategy gaar ah isticmaalaysid ee ku waafaqdo oo ku talagalay kartaa kaliya jihada bixinaynaa jihada weegan suuqa aan ka filaynaa maxay tahay marka ugu dambeyn dollarka waxaan ka filaynaa inuu sidan sameeyo kadibna kor u sii aado insha Allah jihada waa dhaqaaqa xiga next move dollar still waa bullish time frame ka hoose dollar marka intaas ugu gudbo yankeena tagaynaa marka dollar awalba week horaan sharaxnay aan fiirinay overview kaliya ku sameynayna hadda perfect yan bariska waxaan ku bilaabi doonaa lacagta USD JPY USD JPY for hour kan tago waxaya sida u jeedno suuqan qaab sideways ayuu hoos ugu soo socdaa waxaan ka filaynaa marka next move diga muxuu noqon karaa mar warka daan imaado ama suuqa sidaan sameeyo labadan wado sidaan hadda uu yahay inuu kor ugu sii aado ama inuu wire sidaan ugu soo nasto kadibna kor ugu sii aado asmacnadeedu waxay tahay as long as ay taagan yihiin 21 September bullish USD JPY lacag wareersan isku qasan anyway kaliya direction kana oo bixinayna labadan wada u rajeynayna insha Allah labada wada waa kor idan yarta waxay tahay correction yar kaliya inuu sameeyo oo wali hoos u sii daato ama waxa inuu soo daadanina uu sida uu yahay ku sii baro USD JPY warkeeda waa kaliya lacag fiirin badan u baahan maaha maadaama lacag ay iska tahay isku dhaxayashan oo fursado qurux badan ay sameeyaan lacagta xigta waa Canadian yen waxa u jeednaa for hour ka tan tago heer yaad ila aragtaan aragnaa markii daily la joogo from March ila suuqa waa bullish data qof daily ka trade gareeya suuqan jahadiisi waa bullish data hay qof for hour ka trade gareeya marka for hour qof ka trade gareeya kooxdan waa aslaanki kooxdan ay meesha istaagan yihiin suuqa waa bearish nooca waa marka cycle-ka uu soo dhaqaaqay intaan la ekaay kan waxa loogu baahan yahay inuu sidan sameeyo waa uu soo dhaatay qofka inuu sidan u siyaado kadib dhaqaaqa xiga inuu wax noocan oo kale hoos ugu soo dhaatay insha Allah laakiin dhaqaaqyada xiga markasta waa isla joognaa hadda waxa muhiimka maxay tahay weegan ka macquulka focus kan saarayna ana warka daan imaado as long as kooxdan ay taagan yihiin dadka la hadlayo waa dadka warkii waxa koosay ka trade gareeya suuqan waxa ka macquul ah inuu sidan sameeyo oo badan tahay kadibna uu korsi aado ama sidan uu yahay inuu hadda ku dhaqaaqo oo korsi aado midda fahmaysan maxay tahay suuqan wana warka waa bullish marka wana warka suuqa waa bullish labadan wado oo kor u aadi kara labadan wado ayuu kor u aadi karaa as long as kan correction ahaan uu sidaan ugu soo baxaa kor aan rajeynayna inay sii falgalayaan insha Allah aan rajeynayna in ay falgalayaan laakiin as long as impulse ahaan inta uga baxaan waxa macquul ah in kooxdaas warka 31 August ay qaadaanba soo kadib bullishkiisa oo sii aado again for all good recommendation-ka mid uu badan yahay analysis-ka uu yahay waa sidaan insha Allah upwave ayaan rajeynayna weegan haduu alla yahay JPY lacagta bounka for hour kan tago daily kan tago waxay soo aragtaan ayadan sidoo kale from March jihada waa bullish daily hadda ka tagay green suuqa waa bullish for hour aan imaado for hour trade rada tahay oo bearish suuqa oo bearish perfect bearish ku yahay maxay marka waa uu soo dhaqaaqay suuqan waxaan ka sugaynaa nasiino oo sidaan oo kale kadibna inuu sii daato for hour-ka
4 hour suuqa waa bearish insha Allah 1 hour kimaada marka 1 hour kaan imaada waxaan niga saar 22 September from now bullish waaye 1 hour wixii ka hooseeya suuqa target inta ka muuqda marka waxa uu yahay imbalance qurux badan sinadan sidan ay tawqti kara suuqa ana warka bullish sidan ama intuu double ka sameey kara like this kadibna kor asmanadeedu waxay tahay suuqan weega waxa urjeenayna up wave ama sidan hadda structure kan had samaysto ama saan uu yahayba sinadan yarta way ku dhamaatay kor u sii aad wajada yimadu guud advantage hadda baxay inuu suuqan u rajeeyno up wave weegan soo socda insha Allah برافو كاسكدي دور وهافل غلايو ستراكشر markuu xaggan suuqa yimaado ayaan go'aan ka saxda ah doona laakiin haddaftaan analysis good like this one insha Allah برافو nabaqaad sidaas oo kala kontu u aado suuqa soo feelkan I think boom kana waa cadihi warkooda lacagta xigta waxa waaye lacagta xigta waa euro JPY fara warkan tago ayadana daily gaan tago waxay ila aragtaan daily from May ila hadda suuqa waa bullish daily waa bullish 4 hour kan imaado 4 hour waa bearish 4 hour trader iyo wixii ka hooseeya suuqa waa bearish ka marka maxaa laga rabaa structure noocan uu sameeyo sidaan uu ku dhamaan karaa structure kan suuq kor uu sii aadi karaa option banaan kan hadda structure-ka oo aan u rajeynayno oo ka macquulka ah u badan tahay maxay tahay ayaan siinay noocan oo kale oo sameeyaa kadib uu rabo suuqa sidaan hadda uu correction aan ku tago inuu mar labaad galgalayo oo rajeynayna insha Allah waa 4 hour ka 1 hour kan imaado 1 hour kadaan imaado as long as team kan September 28 ay taagan yihiin bullish way suuqan structure noocan aan u rajeynayna hadda waa la yiraa go'aad waa sidaan halka kan labaad uu yahay sidaan halka kan labaad uu yahay sidaan halka kan labaad uu yahay waa bismed noocan yimid marka waxay tahay hadda aad fahmaysaan weegan wave aan ka filayno ama dhaqaaqa xiga aan ka filayno maxay tahay waa bullish euro JPY sidaan uu yahay waa ku tagi karaa ama marka loo hal mar soo galgaray karaa kadib ma koro sii aadi doonaa insha Allah 1 hour ka waa bullish AUD JPY same scenario AUD JPY daily aan tago saad ila fahantaan ayadana daily bullish 4 hour ka bearish structure noocan samaysan karaa masinadan san ay ku dhamaan kartaa suuqa kor waa uu sii aadi karaa ama ma ahane oo uu sii daada karaa correction noocan inta sameeyo ayuu sii daada karaa yimid xataa marka 4 hour ka as long as ay taagan yihiin 1 September bearish wajahada masina structure ka masina qurux badan aad aragtid istaraatiijiyada aad ku waafaqo oo entry ku leedahay suuqaas fursad bearish waa ka baaran kartaa 1 hour kan imaado 1 hour kadaan imaado waa bullish 1 hour suuqa waa bullish structure noocay waa marka data qofka trade garaya 1 hour wixii ka hooseeya inta structure clear ka haysataa sidaan uu yahay suuqa ku sii tagi karaa dhaqaaq lagu sameey karaa ama isaheen waxay soo kala galay karaa kadib ku sii aadi karaa kan oo kale waa meeqo 210 sidoo kale ayuu kor aadi karaa suuqan ama hoostan waxay inta yimaado masaan uu yahay ku sii tagay wajada data qof maqalbi biyo waxyaabaha raadiya intrade strategy-da ku leedahay
1 hour wixii kaas inay ka trade gareysid you can buy it proper SDJ waa loo yaray usoo laabatay okay waan dhameeyaa jeclahay shanta lacag oo ugu muhiimsan lacagaha yeenka qaab noocaas aan filaynaa insha Allah wiigan marka lacagaha kala duwan hadda aad arkayseen dhan time frame kala duwan ku eegayno muhiimadda ayadoo ah in ay kala duwan yihiin ma aha istiraatiijiyad kaliya wata price suuqa meesha oo iga siiya suuqa gala entry oo iga siiya saas ma waa ina og tahay which time frame trader ay tahay ona war wixii ka hooseeya tahay fursadda way ka leedahay suuqan fursadiisa bullish waa feeri marka 1 hour kala joog laakiin 4 hour data bearish waa adoo 4 hour ka trade gareena dhahaya dad suuqaas qabatid up buy gareysid ka war cilada ku imaanaysa sidoo kale adoo daily ka trade gareenaya suuqana soo bearish gareena dad dhaalid caqabada kugu noqonaysa cause daily ka trade gareenaysa daily suuqan yahay waa bullish mujada marka waxa anaga dadka ugu dubanahay ardayga fursadda aan siinaa ay tahay in ardaygu ogaan karo time frame uu taagan yahay sidoo kale tana time frame uu taagan yahayna goorme ayuu heli karaa fursaddii uu ka baarala suuqaas uu heli lahaa intrigi iyo waxyaabahaas uu heli lahaa oo ay u shaqaynaysaa wana warada tahay isla 1 hour ka loo jooga waxay ka jiraan lacago boqolaal ah laakiin kala fiican fursadaha kuwa fursadoodu la isku hubaa jiraan iyo kuwa la isku hubin 1 hour ka kuwa ugu fiican waa lagu siinaa 4 hour ka sidoo kale daily sidoo kale laakiin waxyaabahaas justice-kaas marka caawinaad badan oo dhinacaas ay ka heli doontaa laakiin price oo qalan saar marka u heshid hadaa aqoonti si deeply aad u soo baranin ma ogaa kartid 4 hour musuuqan bullish yahay mise waa bearish daily muu yahay waxaas dhan ma kala cadeey kartid kaliya time frame ku waxa u haysataa kaliya suuqa mar uu iska fogeeyo marna la soo dhaweeyo kaliya macna noocaas hadda ku leeyahay laakiin markii anaga ahaan uu noogu duman yahay time frame marka aad tagayno suuqan ina mar soo dhaweeyso marna iska fogeeyo macna noocaas nooma laha mujada marka insha Allah intaas ku soo gabagabeeyna weegan ha ina balana weega xiga insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh